lagu caleema saaray magaalada madaxda maamulkaasi ee Laascaanood iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Cali Yuusuf Cali Xoosh, wasiiro xildhibaano labada heer ah, madaxweynaha Galmudug, hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah safiirada caalamka. Waqooyi Bari maanta waa tusaalaha nool ee muujinaya in federaalka Soomaaliya ay tahay hannaan suurtagal ah markay iswaafaqaan rabitaanka shacabka iyo ra'yiga hannaanka qaran. Rabitaankii shacabka wuxuu isku beddelay hay'ado dawladeed oo dhisan, dastuuri ah, isla markaasina leh sharciyad buuxda. waxaa doorka weyn ku leh Waqooyi Bari dhismaheeda Cali Xoosh oo in la soo qaado. waxaan hambaliyo u dirayaa madaxda iyo shacabka Waqooyi Bari iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. maanta waa maalin taariikhi ah, munaasabaddaanina waxay qayb ka tahay geedi socodkii dawlad dhiska iyo nabad dhiska dalkeena. dadka Soomaaliyeed waa la sugayaa maanta priority number 1 waxa inoo difaaca dalka midnimadiisa. ragga odayaasha ee boqorada ee ugaasiyada ah ee halkan fadhiya garaadada ee la hadlayo state-ka inuu dhiso oo Soomaali liqdo oo aqbasho waa deyn midnimo. Waqooyi Bari waa maamul goboleed xubin ka ah dawladda federaalka oo ka dhisan waqooyiga dalka, waana tiirka midnimada, ilaalinta qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waxaan halkan ka caddaynayaa in Waqooyi Bari ay tahay dawlad goboleed xubin ka ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka caddeeyo Waqooyi Bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dawlad goboleedyada kale ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waqooyi Bari waxay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta madax bannaanideeda. bulshadii dadnimo fiican halkan kaad ku barat